kan lala dhex socday baraha bulshada runtii saameyno togan oo kala duwana ilaa imika yeeshay ayaan doonayaa inaan waxoogaa ka idhaahdo kulley anigu qof ahaan qoladayadan deegaanku aqoonta u leh waxaan qabaa aragti ka duwan aragtida social media laga baahinayo ama warbaahinta laga sii deynayo taasoo ah wararka la sii deynayaa inay yihiin waxaan la hubin oo aan sugnayn ilaa imika anigu qof ahaan waxaan qabaa shimbiraha hilib cunka ahay dalkeenna way joogaan iyagoo migratoriyana way yimaadaanoo ka soo haajira dhulalka kale ama kuwa gobolka nugula nool ama kuwa adduunyada kale dhulalka aynu la wadaagnaba marka waxay dadku maanta baraha bulshada la dhex marayaan shimbir gorgorabaa wax cunay ama baqayaha ku sheegaan ama coomaadaha ku sheegaan ama gorgor ha ku sheegaan waxaad mooddaa in saddexdaa nooca shimbiraha in la taargetgaraynayo oo runtii sida dadku ay u sheegayaan si ka duwan ay u muuqanayso aniga waxaa ii muuqda dhibaato cadaawad loo geliyey bulshada loo geliyey haadka duula oo cadaawad loo geliyo runtii cawaaqib foolxunood ku keeni doonta hadhowtana deegaanka taasoo ah accident baa mar dhacay duleedka gaashaamuu ka dhacay ilaa imika waxa evidence hoo lahaya oo caddaana in haadkaasi dhaawac geystay ama dhimasho geystay kaa laftiisu waa kii accidentkii ugu horreeyey ee gaashaamo duleedkeeda ereyada dhagxan iyo caddo lagu sheegay kaasoo keliyaan qabaa inuu yahay wax jira waxa kale ee la shubayo ee baraha bulshada la dhigayaa inaanay ahayn waxaan saliya raatoon lahayn runtiina dadku waxaad mooddaa si qayladhaana bay uga hadlayaan qayladhaanta baraha bulshada la dhigayo ee la leeyahay shimbir baa wax cunaya amba shimbir baa dadkii laynaya anigu qayladhaantan maanta halkan ka gudbinayaa waxa weeye war shimbirihii ama haadkii duulaya cadaawad baa loo geliyey bulshada taasina hadday sii socoto cawaaqib foolxun bay nolosheenna ku keeni doontaa iyo guud ahaan deegaanka waayo ilaahay subxaana wa tacaalaa noolo kasta oo dunida guudkeeda jooga xigmad ayuu ku dhigay haadku wuxuu ka mid yahay ecosystemka kan noloshan isku xidhan ee dunida guudkeeda ka jirta ayuu door kaga jiraa marka haddii maanta la dabar jaro haadka duula ama shimbiraha dadku ismay weydiin maxaa cawaaqibee ka imanaya waxaa wanaagsan in la isweydiiyo markaa sababtaan kaliibkan u qabanayaana waxaa weeye in dadka baraha bulshada wararka aan runta iyo xaqiiqada ku salaysnayn iyo cadaawadda la beerayo in la joojiyo in looga hadlo arrinta tan si scientifiga oo la yidhaahdo war shimbirkan wax cunayaa horta waa noocma ilaa imika lama hayo nooca uu yahay lama sheegin kow marka horeysa waxay ahayd in la identify gareeyo nooca shimbirka wax cunay waa kee waa kuma oo la garto nooca uu yahay iyo haybtiisa iyo halku ka soo jeedo maaha in laysku wada duubo dhammaan haadka duulo oo dhan anigu kulley aragtidaydu waxa weeye mid ka duwan habka arrinka loo dhigayo ee la leeyahay disaster baa dhacay oo shimbiraha dadkii kala boobaya oo dadkii cunaya runtii horta waa habaar in la yidhaahdo shimbir baa dadkii cunaya waayo waayadii hore waxaa laisku habaari jiray haadku bob waa disaster haddii shimbiro duula ay dadka cunaan waa disaster runtii laakiin anigu waxaan qabaa inaanay jirin arrintaasi accident mar dhacay oo keliya in lagu baabi'iyo noolo dhan oo dunida guudkeeda joogay oo door kaga jiray noloshan maanta ka jirta dunida guudkeeda ee waarta in lagu dabar jaro runtii anigu ma qabo marka waxaan leeyahay arrintaas si ka duwan sidaa ha loo wajaho marka hore waa in la isweydiiyaa shimbiraha waa u soo socdaa shimbiraha hilib cunku ah ee dalkeenna ku dhaqan iyo kuwa gobolkeenna kula dhaqan iyo kuwa migratory ku iman kara saddexdaa wejiba in la eego oo la yidhaahdo shimbirkani ma yahay shimbir xeero dhalana oo dalkeenna laga heli jiray anigu waxaan qabaa shimbirka gaashaamo wax ku cunay ee sawirkiisa maalintii hore la soo dhigayey inuu ahaa shimbir wadaniya oonu ahayn shimbir meel fog ka yimi iyo mid la soo rabeeyo toona inaan ahayn sababo badan baan ku caddaynaya shimbiraha had iyo jeer la rabaayadeeyo ee la dhaqdo ama carabtu wadato ama dunida inteeda kale waxaa ku xidhan
satellite transmitterkii baa ku xidhan oo aad arkaysaa marka la qabto waa shimbir aaladi ku xidhan tahay satellite markaa wax xidhiidhinaya ama tag baa kaga xidhan cagaha ama qoorta ayuu ku sitaa transmitterkii satellite-ka labadaa midna muusidanoo laguma sheegin gorgor baa lagu sheegay mar coomaada lagu sheegay marna waxaa lagu sheegay baqaye way cunaan shimbiruhu wax oo had iyo jeer adduunyada meelo badan oo lagu arkay haad wax weeraray wuu jiraa laakiin sida maanta somalilan arrinka loo dhigayo maaha waxaan qabaa shimbirkaasi inuu ahaa shimbir yar ama ha noqdo baqayo yaroo dhala ama ha noqdo galaydhka kiisa waaweyn ayuu ahaa laakiin ma ahayn gorgorrada halista ah ee xoogga badan leh ee dadka qaadan kara ama dadka weerari kara mu ahayn waxaan qabaa in laysugu yimaado shimbir yaqaanada wixii dalka ka joogaa in arrintan ay isaga yimaadaan oo la debate gareeyo horta shimbirkani waa noocma la identify gareeyo nooca uu yahay hadduu wadani yahay iyo haddii uu meel kale ka yimiba la yidhaahdo waa hebel haybtiisuna waa reer hebel halkaasuu ka soo jeedaa halkaasuu ka yimi tii lama odhan iminka maanta waxay keentay maalin walba waan eegaa facebooka iyo baraha bulshada tan iyo maalintii gaashaamo arrintu ka dhacday ilaa dhowr iyo 40 kays oo shimbira oo gorgorradaasa ama coomaadayaashaasa oo la dilay baa maalin walba la soo dhigaa waxaan qabaa in masiibo ay tahay iyo disaasterku ma aha dadka la cunayo illee uu cuno ee aan jirin laakiin disaasterku waxa weeye falalka kale ee sida lagaga jawaabaya arrintaa ee lagu bartilmaameedsaday haadkii gorgorka la odhan jiray taasina waxay keenaysaa cawaaqib aad u foolxun waayo waxaynu ognahay ilaahay subxaana wa tacaala noolo kasta xikmad buu ku abuuray haddii haadka hilib cunkaa uu dabar go'o maxaa soo wajahaya waa maxaa cawaaqibka ka dhalanaya in arrintaa la isweydiiyo dhibaato maalin qudha dhacday oo uu dhaawac geystay ama uu dhimasho keenay in noolo dhan adduunyada lagaga tirtiraa waa arrin lala yaabo weeye marka waxaan leeyahay arrintaas sida looga jawaabayo si ka duwan ha loo wajaho ha la daraaseeyo bal ha loo kuurgalo ha la maro dhulka lagu sheegayo wararku siday isu soo daba dhacayaanna uma wada jiraan keen walba nin baa qori la taagan nimanka keen walba islaam baa leh anigana wuu soo weeraray hargeysa lala dhex wareegaya marka waxaan leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan anigu qof ahaan kolley waxaan qabaa kayskii gaashaamo ka dhacay ee labada inan uu ku weeraray way jirtay intaa wixii ka dambeeyey wax accident oo dhacay lama hubo inanka xaaji saalax la sheegayo allah yarxama runtii waa arrin naxdin leh laakiin nabarrada ka muuqda marka ayn eegno caqligu wuxuuna tusayaa inaanay suurtagal ahayn in nabarradaa uu geystay shimbirkaasi waayo shimbirka afkiisaynu garanaynaa intaa uu leegyahay qof arkayena ma jirin inuu bahalkii cunay waxaa la yidhi guri gudihiiba ku cunay ma geli karaa gorgorka guriga gudihii ma ku cuni karaa qof in waxyaabaha la isweydiiyo in la eega dhaawaca gaadhay inanku intaa uu leegyahay oo la derso ayaa wanaagsan inta aan wararka la baahin marka waxaan leeyahay inankaa arrintiisana ha lagu noqdo waa suuragal in inankaasi kale wax ugu dhaceen ama cidi dishay dhaawac cid kale u geysatay anigu kolley ma qabo shimbir baa inankaa dhibaatadaa u geystay waayo dhaawaca ku yaallaa wuu ka wen yahay dhibaato shimbir geysan karaa waayo halkaa foodda halkaa sujuudda oo dhan baa daloosha inanka taasina meelaha lafuhu halkay ku jiraanna kama ataaga wax haadka hilibka cunkay goljilicda ayuu abbaaraa keliyaha qanjidhada hoostooda oo meelaha uu dalooliyo si uu gudaha ugala soo baxo hilbaha ku jira laakiin halkaa foodda ayuu dalooshadaa oo maskaxda ka dhuuqaa waa waxaan dhici karin marka arrintaa waxaan leeyahay dib ha loogu noqdo wararka laga baahinayo baraha bulshadana aad ha looga fiirsado arrintan marka laga warramayana cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay la isweydiiyo waxaan leeyahay haddaan ka hadlo cawaaqibka ka iman karaa haddii haadka hilib cunkaa laga mariyo arlada maxaa dhacaya runtii de ilaahay naguma keeno laakiin waxaynu ognahay haadka hilib cunku ahi tusaale ahaan haddaynu u soo qaadanno bakteeriyada ka dhalata raqda xoolaha ama meelaha wax lagu gorooca lafaha ka soo hadha waxa ka soo hadha meelaha lagu qubo iyo waxa meelaha ku baktiya waa noolaha feenka ka idleeya ee lafta ka caddeeya wixii hilbeehe ku yaalla halkaa waxa uu ku baabi'iyaa bakteeriyada marka haddii haadkaa la dhammeeyo waxaa dilaacaya oo qarxaya bakteriya
bakteeriya markaaba wajahaysa aadamaha oo ama furayn keenaysa ama TB ku keenaysa ama cudurro kale oo degdeg u faafa keenaysa marka dhibaatada haddii la mariyo noolaha dhalanaysa ayaa ka xoog badan dhaawac maalin ama qof u geystay oo qadarta rabbi ku timi marka waxaan leeyahay qolyaha shimbiraha wax ka yaqaana ha isaga yimaadaan arrintan ha loo kuur galo waa kuma shimbirkana xaguu ka yimi xaguu ka soo jeedo waa in la isweydiiyaa dadweynahana waa in lagu wacyigeliyaa haddiiba ay dhacdo oo isagoo qof weeraraya la arko in la isku dayo in la qabto waayo haddii la qabto waxaa la caddayn karaa wuxuu yahay yaalku ka soo jeedo haddiise nabar ku dhaco lafteeda urku jirta inta laga saaro meel ha la dhigo waa specimentka waxaa loo diri karaa xarumaha waaweyn ee maaragtay scientific ee beertiska qolada ku shaqada leh ay joogto si ay u soo identify gareeyaan waxa uu yahay iyo meesha uu ka soo jeedo shimbirkaasi marka waxaan leeyahay baraha bulshada arrintaa laga taxadiro dhibaatada laga digayo mid ka weyn yaan loo geysan bulshada wassalaamu calaykum